السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salafkii baa waxaa laga soo naqliyaa oo laga sheegay laga soo guuriyaa inay yiraahdeen man lam yanfacka laxdahu lam yanfacka lafdahu, yacni qofka aanay ku anficin dhaqankiisu aanu ku anficin hadalkiisu kuma galo. Si kastuu wanaag kugu sheegay, si kastuu wax fiican kugu sheegay, kugu tilmaamayo hadalkiisu kuma galay haddaanu dhaqankiisa iyo sulugiisa aanu ku cajabin. إلهنا سبحانه وتعالى مركو نقول رمي نبي الله شعيب محيري وما أريد أن نخالفكم إلا ما أنهاكم عنه. النبي عليه الصلاة والسلام مركي أصحابه تلمامي سينوحي كتلمامي كان خلقه القرآن، يعني أخلاق دي النبي عليه الصلاة والسلام وحوها قرآنك، يعني قرآنك وحي دقن أخلاقي ونكسر كسو أروري أي النبي عليه الصلاة والسلام سيد ودبق جري كان خلقه القرآن. in badan oo kamida markaa waxa loo baahan yahay ducaadeena iyo murabbiyiinteena iyo waalidka iyo dadka tarbiyadeena macallimiinta inay isticmaalaan qaacidadan, inay iyagu dhaqankooda akhlaaqdooda qaabkay u labisanayaan, qaabkay u hadlayaan, qaabkay u dhaqmayaan inay wanaajiyaan. waxay ku xidhan tahay hadalkaaga iyo wanaagga tilmaamaysa dadka u tilmaamaysa in la qaato dhaqankaagu qaabka iyo nooca uu yahay. مركز laga waramayo axad ducaati مثل ibn al-Jawzi oo kala marka laga waramayo kala waxa la tilmaabaa inuu isku day jiray dadka markaana waacidan wuxuu dad mid dadka wacdiyuha, laakiin marka uu dadka isku dayo inuu wacdiyo waxa isku day jiray waxa uu isagu sameeyo inuu dadka ku wacdiyo oo dhaqankiisa kamid ah. qisooyin far badan baa laga soo naqliyaa laakiin ma doonina ku dheeraado. waa halkii uu shaacirku kala hayaa ya ayuha ar-rajul muallimu ghayrahu هلا لنفسك كان ذا التعلم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. يعني وحط المامية qofku inuu waxa aanu sameeynin isagu aanu ka reebtoomin ama wixii la faray aanu isagu aanu sameeynin inuu dadka ku yiraahdo sameeyna ceeb tahay caarun calayka idaa facalta cadiim. marka in badan aan ku dadaalnayno nafteena inagu marka hore wanaajino. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu quraan ku tilmaamay qad aflaha man zakkaaha وقد خاب من دساها. يعني waxa Ilaahay liibaanay buu leeyahay oo liibaanay u sugnaatay qofka naftiisa hufay haadiyay xumaan oo dhanka hufay ka haadiyay, waxaana khasaare iyo guul darro ay u sugnaatay qofka naftiisa xumaan bartanka u dhigay. in badan oo kamid ah waalidiinteena macallimiinteena waxa loo baahan yahay isticmaalaan iyo ducaadeenu qaacidadan. waxa laga yaabaa guriga marka timaadid haddaad waalid tahay, aabba haddaad tahay iyo haddaad hooyo tahayba inaad markaad guriga timaadid moolka qaadatid, moolkaad markaa isticmaashid ka social media waxyaabo kale oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadaan raali gelinba ama xataa wax aan dembiba kugu sugnay laakiin waqtigaa ka dayacay. markaas aad noqonaysa ilmahaaga quraanka akhriso, iskuulkii tag, casharadii iskuulka muraajace ilmihi iskuulka casharadiisii muraajaceeyaa adigii buu ku arkayaa adigoo moolska isticmaalay. isna wuxuu isku dayay inuu moolka ka qaado, bal u fiirso adigu ilmaha markuu waliba yar yahay wuxuu isku dayay moolka inuu qaado isna uu isticmaalo. marka wax badan dhaqankaaga haddaad guriga marka joogtid aad ku dadaashid dhaqan wanaaga. Ilaahay nabiga calaysalaatu wasalaam markuu inuu leeyahay salaada sunnaha waxa fadli badan in guriga lagu tukado waxa weeyaan mid kamid ah faa'iidooyinka ay leedahay waxa kamid ah ilmihii iyo carruurtii guriga joogtay baa baranaysa dhaqankii iyo salaadii baranaysa wanaagsan. laakiin guriga marka timaadad mool isticmaashay haddaad waxyaabo kale ku mashquulshid waxa laga yaabaa ilmihii inuu dhaqanka qaato. waxa laga yaabaa waliba dadka aad baan looga digay qofka qayla ama dadka balwada leh guriga inay balwada la yimaadaan. way si kala xuntay balwada markooda hore xuntay laakiin guriga inay yimaadaan carruurtaadu iyo ubadkaagu dhaqankaaga yeelanaya mustaqbalka. marka inaad isku daydo dhaqankaaga inaad hagaajisid. tasan jecel inuu ku soo gabagabeeyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.